مسؤولين كترسان مامولka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu caleemo saarayay gudoomiyaha cusub ee degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose warkan waxa faahfaahinaysa wariyahayaga Farxiya Maxamuud Yuusuf munaasabadani oo lagu caleemo saarayay gudoomiyaha cusub ee degmada Kuntuwaarey gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ayadoona ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed odayaal dhaqameed dhalinyaro haween iyo waxgarad ayaa ugu horeen waxa goobta ka hadashay maama Aamina Xasan oo kamid ahayd dadkii ka soo qayb galay munaasabadana ayadoona ka hadashay warbixin uu soo gudbiyay TV-ga Somali News oo ku aadanaa mid kamid ah barakacayaashii ka soo barakacay baaraha dalka ku dhuftay haatan ku nool duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Baaley ka oo ahaa in qofkii ka dhintay qoyskiisa lagu xujeeyay in laga qaado $50 oo ah halka lagu aasi lahaa qofkaasi ayadoona tilmaamtay maama Aamino in ay tahay arin laga murugoodo maanta waxa meesha daadsan oo xalay aad telefishinka ka arkaysay nin qoynay oo ka soo barakacay Shabeellaha Hoose ka soo barakacay wiil Kuntuwaarey iyo Sablaale ninkaas oo xataa waay meelkiisi روح أبو أسوأ قبل الضرب أضرب يمين على المآسي سبب محل مقاطع أنا هتان هاي ذاتي كسوجي وفضل بالجارها حتى بحق شيء ذاتي وفضل بالجارها ذاتي شبيلة مصري وإذا مقصدين كان sidoo kale waxa goobta ka hadlay qaar kamid ah dhalinyaradii iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayagoona soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Kuntuwaarey ee lagu caleemo saaray magaalada Muqdisho ayagoona sheegay in ay garab taagan yihiin gudoomiyaha cusub نور شغلنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله متفارق معايا حوصة وعم ماشي على مسار إلى جزيرة Kuntuwaarey وحرفنا إن إلهي كل كسيو نور إلهي سني وعلى روحي هربلا ديفلوماتا إمتيانا قدام أقولك كأي مسؤولك إمتيانك نور وحن كلا أقول على تحليل الإسلام على هذه إن كلا شيء يوقع وأهل يجمع أنا أحس بينه أهل يجمع مفرحسن هاي وأنا بدنا نطلعنا أما أنا وأهلنا يروحنا إن سوى سمع الله سبحانه وتعالى أنا أحس بينه gudoomiyaha cusub ee degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose ee maanta lagu caleemo saaray magaalada Muqdisho Nuur Ibraahim Aadan Sanay ayaa dhankiisa tilmaamay inuu aad ugu mahad celinayo dadka soo qaban qaabiyay munaasabadani sidoo kalena waxa uu sheegay in waxyaabo fara badan uu ka qaban doono degmada Kuntuwaarey ee haatan loo caleemo saaray waxa mahad ballaaran u jeedinayaa marlabaad iyo saddexaad dhalinyarada qiimaha badan سوما موسى حفلة هذا وقيمة سعيسة مرلوات المسجد وحنا جعلان لها مرلوات المسجد حدنا وصحب القليلة الآن ولا يا المروين وحنا جعلها هنا يدلو ذلك وشيء وراح عند 5 سنة هاي يحيك اللي يجي ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabadani soo gabagabeeyay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Maxamuud Xuseen Cali asagoona u mahad celiyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadani فرحي محمود يوسف Somali News TV مقدشو